si loo xoojiyo amniga iyo wada shaqaynta degmooyinka iyo laamaha amniga gobolka Banaadir ayaa waxaa degmada Dharkeeley laga sameeyay howlgal ay ka qayb galeen qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo agaasimayaasha guud ee gobolka iyo mas'uuliyiin kale. Iskaashigan amni oo ah mid howlgallo looga sameyn doono dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir waxa uu yahay mid loogu talagalay in degmooyinku ay iska kaashadaan amniga iyo wada shaqaynta. ugu horeyn waxaa howlgalka ka hadlay agaasimaha xafiiska amniga gobolka Banaadir Mahad Xuseen Axmed waxaana uu faahfaahiyay ujeedada howlgalkan. kulankan wuxuu daba joogaa kulan maalmahan soo socday oo bilaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish kaasoo ahayd ujeedada ugu weyn in bulshada iyo shacabka degmada Dharkeeley la soo gaarsiiyo akhbaaraadka iyo message-ka uu noo soo gudbiyay gudoomiyahayna oo ahaa in shacabka laga wacyi geliyo isticmaalka drugska in laga fogaado isticmaalkiisa in laga fogaado ka ganacsigiisa dhibaatada aaska u ahna uu yahay amni darrada waxa kalifayo isticmaalka drugska. qodobka labaad ee aan maanta caawa halkan isku nimid waxa waaye sida aad la socotaan waxa nagu soo fool leh waqtiyadii doorashadii labadii aqal ee baarlamaanka aqalka sare iyo aqalkii hoose gudoonkoodii iyo doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee maalmahan dhacaysa inaan ayagana u diyaar garowno. qodobka ka saddexaad ee aan u nimid caawa halkan waxa waaye inaan bal ogaano in qaabka ay iskula falgalayaan hay'adaha amniga booliiska iyo maamulada degmooyinka taasoo aad ka markaati kacaysaan inay garbahayna maanta taagan yihiin booliiska aysan jirin kala qaybsanaan aysan jirin isfaham la'aan